waxaan ahay garoob macna gabadh garoob ah waan u sheegay wiilka ii guursanay inaan ahay garoob laakiin waxaan xujo uga dhigay inuu dadka hortooda iigu guursado inaan ahay gabadh waayo ma rabo dadka inay ogaadaan inaan ahay garoob wuuna iga aqbalay sidaa ma isku mehersan karnaa وش المشكلة هذه اللي قاعدين قروب تاعي ما حابش كلو كتير قروب واه تاعي صوبه مركينا قروب تاعي محاربه كتير إلا وقال هرين تاسي وارين خلطة وارين خلطة وحي خلط كتاعي كوي هرتا مركا اللي سقور سنة يو مرخاتبا لغا مرمان أقورك مرخاتيقونا وحي ماشا كرنا عيبو مرخاتي فوري دونا haddii meeshii gabadhii lagu guuriyay inay gabar tahay inaan oo wali la guursanin xaqiiqaduna ay khilaafsan tahay bari shuhuudu maxay marxaati kici doonaan beentii la isku guursaday in marxaati furi doonaan Soomaa wa shahadatu zuur Soomaa waa khalad waa wax qaldan oo la marxaati furay waa masalada labaad waxay soo galaysaa arintaasi xadiidkii nabigeena sallallahu alayhi wasallam xadiithu asmaa oo أسماء بنت أبي بكر وحيتي هويني بقى نبي قوتي صلى الله عليه وسلم مركزها وحيتي إن لي ضرة فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني وحن ليه هويني دنقلاء أو ليلة قبو دنقلاء دو والله دمر كاللي سوق ليس لقبو محيسوين إيه لو دمر كاللي سلقبو ولا لا ninba isu keenay Soomaa maxay isu yihiin iyagu Soomaaliga wax la yiraahdo dangalaysi waa dangalayaal danba iska gashay meel ba isaga yimaadeen soo marka waxay leedahay haweeney waxaan leeyahay dangala ah oo layla qabo marka ma muujisan karaa ninkaygu wuxuu san isiinin ayaa ma sheegan karaa يعني مرة أوسن الرد بحوسن السنين جوجل أوسن إيه دين وحوسن إيه قوانين مشاهجن كرا مديه كرا وحاسو إيه سمي ونوع شيء متورشاء معنا مركز النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور روحا اسكدر شيا واسكو قرحية وحن للسنين وحن حقيقة أهين شيكتا wuxuu la miday nabi sallallahu alayhi wasallam ruux laba maro oo been ah xidhay oo kale la miday marka xaqiiqadaada ha ka been sheegin waxaan lagu siininaha muujisanin waxaan jirinaha isku qurxinin hadii kale laba maro been aad qabtaa waxba kama jiro Soomaa marka mafsado weyn waa ku jirta waa in haday garoob tahayna majliska aqdigu ka dhacayo marxaatiyadu joogan lagu gooriyo inay gabadhu garoobta haddii kale tan waa in lagu guriyo inay gabarta nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi sidoo kale xadiis xasan sida ku yimid arooskii Aisha markuu Aisha la aqal galay sallallahu alayhi wasallam ayaa gabadhii aqal geynaysay Aisha markuu isagu sharaabkii cabay oo xaaskiisana uu siiyay oo cabtay ba gabadhii aqal geysayna wuxuu yiri adiguna cab kadibna dumarka saaxiibada ay halka jooga iyagana si dumarkii waa sharaabkii loo geeyay markaas ay waxay yiraahdeen la nashtahi marabnay dheh yani waa uma baahnin taqriiban waa dhereegsanahay kale baahin nooma hayso markaas nabiga wuxuu sallallahu alayhi wasallam la tajma'na kadiban wa ju'an bu nabi sallallahu alayhi wasallam ya gaajiya been ha isku darina ya waad gaajiysantihiin beenna waad sheegaysana waxa leedihiin uma baahnin oo waa dhereegsanahay marka been iyo gaajo ha isku darina bu nabi sallallahu alayhi wasallam sidaas daraadeed sida laga maarmaanka ruuxa waxa la rabaa madharkiisa iyo mabtankiisu inay isku mid yihiin waxa muuqday dadku ka arkayaan iyo waxa ku qarsoon waa inay iswaafaqaan hadii kale meesha waxa ku jira waxaan saxsanay qaabkaasi marka ma saxsana qaabkaas ma saxsana bari hadii dhacdo ka soo qaad mafaasida ka dhalan karto waxa kamid bari ninkii markuu la aqal galay haweentii ayaa la isqabsaday waxay ku dooday gabadh baan ahaa isaguna wuxuu yiri garoob baan ku guursaday maxaa lagu kala bixi ya
markhaatiyadii soo maaha markhaatiyadiina baatil bay markhaati ka ahaayeen soo baatilkii un furi maayaan soo baatilkii la xukumi maayo saas daraaddeed arrintaasi ma saxsana wallahu aclam